Assalaamu calaykum daawade. Halkani waa xogta qarsoon. Ku soo dhawaada muuqaalkani oo aan kaga hadli doono maxaa hortaagan baarista kiiska Ikraan Tahliil. Maxaa la gudboon maxkamadda ciidamada qalabka sida Rooble maxay tahay sababtan ee baaristu u hortaagan tahay. Muuqaalkani ayaan kaga hadli doonaa daawade. Haddii tahay markii ugu horeysay oo channelkani ku soo gaaro daawada magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxmed. Bartana waa xogta qarsoon. Waxaan ka codsanayaa inaad halkani saaxiib igula noqoto. Hagaag waxaa hortaagan wali caqabado badan oo isbiirsaday baarista kiiska sargaalada Ikraan Tahliil oo ka tirsaneyd Sirdoonka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya wuxuu xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka tirsan qoyska Ikraan Tahliil Faarax oo ku jirto hooyada dhashay Ikraan Khaalid Maxamuud Gaad sidoo sheegay afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo. Rooble ayaa qoysku sheegay inuusan wax gorgortan ka galin kiiska Ikraan ayna ka go'an tahay inay cadaalad hesho maalin uu dhawaato ama ha dheeraato. dhanka kale xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka qayb gashay kulan waxay sheegtay in maxkamadda xeeraalinta dalka ay cadeeyeen in kiiskii halkii lagu baari lahaa bay hor istaagsan tahay madaxtooyada iyo taliska nise farmaajo magacaabay. xildhibaan Aamina waxay sheegtay in kiiska ay ku geedaamayeen caqabado badan oo suurtagal ahayn in si dhab ah loo baaro sida ay la wadaageen saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida aan ka warqabno baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil oo aynu geynay maxkamadda waxa uu ka dhaqaaqi lahayd sabab la xiriirta dadka kiiska lagu tuhmayo oo awoodii dawladda isu qarinaya. maxkamadda xeeraalintu waxay noo cadeeyeen in kiiskii halkii lagu abaari lahaaba ay hor istaagtay madaxtooyada iyo hoggaanka ee aqoonsan yihiin taliska nisa. xildhibaan Aamina waxay sheegtay in kiiska ay ku geedaamayeen caqabado badan oo suurtagal ah in si dhab ah loo baaro waxaana ay soo bandhigtay 4 qodob oo saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida uu sheegay inay kala kulmeen taliska nise farmaajo kuwaas oo ku cadeynaya in suurtagali weysay gudagalista baaritaanka kiiska gabadhan. 4 qodob ayaa waxa ay kala ahayeen oo ay sheegtay Aamina in ay qayb ka yihiin in taliska nise habar qadiijo ah xarunta ay koolgali jirtay Ikraan loo diiday baarayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida. taasi waa mid kale oo dhib badan waxaana xusid mudan in sababta ugu weyn ee maxkamadda ay tahay inay tagto goobta falku ka dhacay sidoo kalena ay baarto guud ahaan hay'adda. taasi waa loo diiday maxkamadda ciidamada qalabka sida inay tagaan habar qadiijo ah taliska ugu weyn ee xarunta nabadsugadda Sirdoonka qaranka nisa ayna ka howlgali jirtay Ikraan Tahliil Faarax. 2 in taliska nise uu joogo Yaasiin Faray oo kamid ah saraakiisha nise oo ay ku eedeysay afduubkii dilka Ikraan taas oo suurtagelinay inuu bilowdo baaritaanka. maxkamaddu waxay ku andacoonaysaa in Yaasiin Faray oo kamid ah dadkii la eedeeyay uu joogo habar qadiijo ama taliskaba sida daraadeed isagu caqabad waxa uu ku yahay in baarista saxda la guda galo. taasina waa mid kale oo dhibaato ku ah ehelka iyo qoyska Ikraan Tahliil Faarax sida ay sheegeenna waa mid labaad ee caqabada hortaagan. 3 in saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida loo diiday kaamirooyinkii ku xirnaa xarunta nabadsugadda agagaarkeeda iyadoo la sheegay in dhammaan la tirtiray muuqaaladii ay kaamirooyinkaas qabteen. tani waa mid kale oo caqabad hor leh keeni karta. haddii aan mid u eegno horta ugu horeyn in saraakiisha maxkamadda ay tagaan goobihii kaamirooyinka iyo xarunta agagaarkeedaba in la siiyo waxay ahayd waxa ugu horeeya ee baarista laga bilaabi lahaa balse waa loo diiday guud ahaan maxkamadda ciidamada qalabka sida xitaa inay tagaan habar qadiijo. sidoo kale waxaa xusid mudan in kaamirooyinkaas la tirtiray waa mid kale oo khatarteeda leh sabab la xiriirta in kaamirooyin duubaya guud ahaan xaruntii ugu weyn ee taliska Sirdoonka Soomaaliya la tirtiro mar qura. taasi waxay keeni kartaa caqabado kale oo iska hor imaan kara sida in baaristan mar dambe aan loo laaban iyo in sidoo kale waxyaabo kale oo ku hoos duugan ay jiri karto. 4 in saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida si cad loogu sheegay inaan loo fasixi doonin baaritaanka kiiskan oo aysan heli doonin cid kasta oo ay rabaan inay wareystaan. maxkamaddu waxay ku qasban tahay inay wareysato saraakiisha ay tuumanayaasha yihiin iyo kuwa kale ee la shaqeynaya Ikraan balse sida qodobkani ka muuqato ay sheegtay xildhibaanada waxaa loo diiday guud ahaan in loo fasaxo baaritaanka ama ay helaan cid kasta oo ay doonayaan inay wareystaan. waa mid kale oo caqabadeeda leh midba midka kalena waa lagama gudbi karo ilaa mid dhameystiran la helo. midda hore oo la yaabka lahayd in kaamirooyinka la tirtiray waxaa ka daran in baarista loo diiday in la wareysto saraakiisha tuhmanayaasha ah. waxayna tani noqotay caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in la baaro kiiska sargaalada Ikraan Tahliil Faarax. Ra'iisul Wasaare Rooble doorkiisu waxa uu kalkii hore sheegay inay tahay in mar uun cadaalad ay hesho gabadhan ha dhawaato ama ha dheeraato balse sida muuqata hadda waxay ahayd inuu doorkiisa qaato oo maxkamadda uu la tago guud ahaan goobahaas ay doonayso in maxkamadda ay cayintay in loo wada diiday ama xitaa uu sameeyo dadaal yar si kiiskan loo guda galo. haddaba maxay tahay caqabadaha hortaagan socodsiinta dacwadda kiiska Ikraan? eedeysanayaasha oo madaxweyne farmaajo u dallacsiiyay xilal sare kala qaybsanaanta hay'adda nisa
eedeysanayaasha aan ixtiraameyn awoodda maxkamadda ciidamada qalabka sida faragelinta siyaasadeed ee madaxweynuhu uu ku hayo kiiska maqnaanshiyaha kaalinta bulshada rayidka iyo gobol faleedyadii ka dhacay oo aan baarayaasha awood u lahayn inay gaaraan waa caqabadaha hortaagan kiiskan lagamana gudbi karo ilaa si sax ah loo dhameystiro caqabadahaas hooyo qaali guhaad waxay sheegtay in madaxweyne farmaajo uu hortaagan yahay kiiskeeda waxaan leeyahay farmaajo ilaahayga ku abuurto kobaq gabadheeda masaakiinteeda ee dalkeeda u timid wax u qabo inay cadaalad hesho u raadi ayay tiri hooyada waxay intaasi ku sii dartay kiiskan dadka ku leh waxay ku badbaadi karaan in gabadheena nool la keeno cid wax u raacanaysa markaas ma jirto gabadheena gacantan ku dhigeynaa waana wadanaynaa laakiin haddii ay disheen ka wareega baaritaanka waxaan ku qanci karnaa in tiirka la geeyo dadkii ay dilay Ikraan ayay tiri waxay sheegtay in kiiskan weligeed ka hari doonin kuwii ku lugta lahaa oo meel kasta dacwo ay ka furanayaan taasi waa mid taagnaan doonto dacwadda gabadhani waxay ahaan doontaa mid soconaysa Ikraan Tahliil Faarax oo da'deedu ay tahay 24 sano jir waxay ka tirsaneyd waaxda amniga internetka hay'adda nabadgelyada Soomaaliya eelkeedana waxay ka maqan tahay ku dhawaad 4 bil Ikraan oo si dhow la shaqeynaysay gudoomiyihii hore ee gobolka Allah u naxariistay injineer Riiso ayaa la leeyahay tan iyo 26 Juun sanadkan oo ku jirno 2021 waxaana nisay ku eedeysay al-shabaab oo dhankeeda iska fogeysay markii ugu dambeysay waxaa baara labadii gaari loogu soo qaaday hoygeeda u dhow xarunta nisa oo ah goob amnigeeda aad loo ilaaliyo ama kaliya ay galaan gaadiidka haysta ilaalada gaarka ah ee haysta fasaxyada heerka ugu sareeya ee dawladda hooyada Ifraax ama Ikraan oo degan dalka Turkiga waxay sheegtay inay heleen muuqaalo CCTV oo muujinaya markii ugu dambeysay gabadheeda ay ka bixisay gurigii gaarigii lagu sii qaaday hadaba waa tuma Ikraan waxay bishii Agoosto ee sanadkii 1996 ku dhalatay Muqdisho waxay ka mid tahay dhalinyarada oo dibadda wax ku soo bartay kadibna dalka dib ugu soo laabtay waxayna khibrad in muddo u lahayd shaqooyinka xafiisyada dawladda iyo ammaanka gabadhan ayaa ah in ka badan 5 sano ka hor ku biirtay hay'adda nabadgelyada Sirdoonka Soomaaliya ee nisa iyadoo ahayd madaxii amniga internetka markii ugu horeysay inuu ku biirtay waxay ahayd sanadkii 2017 sidoo warbaahintu sheegay taliyay hore ee Sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbulolshe kadibna waxay shaqo ka bilowday xafiiskii gudoomiyihii gobolkii Duqay Muqdisho ee agaasima ka ahayd xogaa kadibna Soomaaliya ayay ka baxday Ikraan inkastoo mar kale dib ay ugu laabatay hooyadeed waxay sheegtay in markii ay baxday aqoon kororsi u aaday dalka Ingiriiska hagaag daawaday muuqaalkeeni koobnaa waa naga intaas nabadgelyo